بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha dhammaantiin aad iyo aad ayaan idin salaamayaa oo ma aragtay runtii aan salaan qalbiga ka soo go'day ayaan idinku salaamayaa talow caawa waxaan ka hadli doonaa insha Allah. Caawa waxaan ka hadlayo maxay talo yihiin. Caawa waxaan ka hadlayaa barnaamij yar oo ku saabsan ma aragtay cunsurnimada la sheego xaqiiqatan Soomaali ayaa loogu yimaadaa cunsurnimo. waxaa cajaa'ib mataqaanaa waxa qof bili-aadana uga daba shidanayo anu taasaan garan waaya runtii waxyaabo badan ayaan ma aragtay aan runtii dadka aan kula yaabaa. anigu horaan idinku sheegay waddankan Mareykanka ayaan joogaa muddo almost 25 years ku dhowna waan joogay alxamdulillah. anoo yar ayaan waddankii aan kasoo tegay waxaan ku barbaaray aan ku koray meeshaan aan joogo runtii. marka waxyaabaha badan marka dadkeena aad aragtid sida yacni ay maxaa la dhahay ay yacni dadku isku cunsuriyayaan wax aad maskaxdeeda igala weyn ayay noqotaa. horta marka u horeysa waxa weeye Soomaali haddaynu nahay san hore u sheegay cunsurnimo inaga leenugu yimaadaa. dad waxaynu nahay maaragtay seef labood ah. dad ummadaha kale afkooda waad ka nabad helaysaa laakiin inagu waxa weeye qof walba qof unbuu saaran yeelahay markiis ya waxyaabaha iga fajiciya waxa weeye qofku ma wax uu yacni uu adduunyadan ka qabsado aakhiradiisana u shaqaysto miyuu waaye. horta marka u horeysa waxaa su-aal ah adigu qof waxaa tahay bili-aadana addoon baa tahay ilaah baa ku abuurtay aniguna sidoo kale qof waxaan ahay maaragtay addoonah ilaah baa i abuurtay bili-aadami baan ahay. waayahay ilaahay wuxuu labada garab uu inaga saaray laba malaa'igood oo midna raqiib la yiraahdo midna catiid la yiraahdo oo wax walba ood samaysid ku qoraya buuggaas. secondna yacni aan indhaha isku qabanayn ama ayan yacni ay maaragtay wax kale ku mashquulayn. shaqadooda waxay tahay inay hawsha iyada ah ay gutaan. marka qof bili-aadana adiga taadigaada ma ka warhayn intaadan isxisaabin waxaa la yidhi isxisaabi bal adigu taadu xagay kula maraysaa. qof intaad ka daba shidanaysid taadu xagay kula maraysaa. inaad adigu isxisaabisid inaad adigu hoos isku eegtid ayaa wanaagsan ma garat. talabaad wax yar bay arkayaan wixii baa lasii buunbuuninayaa qiil waqaala subxaan allah. diinta waxa weeyaan siday tahay in lagu dhaqmo ayaa wanaagsan. haddana waxaa laga yaabaa inay dadku qaar is yiraahdaan oo talo qoftan qoorteeda soo qaawinaysa ee maaragtay maxaa la dhahayay iska caadiga ah talo waa maxay sidan u hadlayso. diintu saas ma aha. dad baa jira astaantii lagu sheegay qofka muslimka ah especially gabdhaha ay ka muuqato oo haddana xaalkoodu ilaahay og yahay. qof ayaa jira laga yaabay madaxa gabar qaawisata gabar surwaal qaadata gabadh hadduu allaba qadarkeed leeyahay hadday doonto balwad leh ya qofkan ilaahay baa quluubtiisa u jeeda ilaahay quluubuhu daalacdaa. waxaa laga yaabaa gabadha iyada ah inay kaa qalbi wanaagsan tahay inay kaa sadaqa badan tahay in afkeeda iyo adinkeeda ummadda ilaahay gaalaya muslimba ay ka nabad helaan. adiga waxaa kuu muuqda un jas korkaas qaabku qofka uu ka yahay moogta. sidoo kale gabar waad arkaysaa
xijaaban oo sidii la doonaya asturan maasha allah. that doesn't mean gabadhaasi inay maaragtay wax walba dhagdhag ay ku tahay, way dhici karaysaa, laakiin waxa aynu inagu iska dhaadhicinay ayaa sidaasa. marka waxaa la doonayaa walaalayaal qofku inuu isagu hoos isku eego. nin iyo naag baa haddeer kala tegaya, waxay ku kala tageen allahu aclam. sheeko yar baa la maqlayaa inta 10 20 30 lasii saaro ayaa maaragtay meel kasta la marinayaa. mid ilowday qiyaamaha, xisaabta dambaysa, iyo ilaahay ma aragtay subxaana wa tacaala inay waxba ka dadnayn, waxba ka qarsoonayn. dembi haddaad ka gashid ilaahay isagu qafuur raxiim ah ayuu shadiidul ciqaab haddana u yahay. waxaa laga yaabaa dembiga haddaad ka soo noqoto ood ka toobad keentid oo mar dambe aadan u samayn, ilaahay waa qafuur raxiim inuu ma aragtay uu ku saamaxo. laakiin xisaabta waxaa ku jirta qofka dembiga aad ka gashay ilaa isagu uu kaa cafiye mooye qofkaasi qiyaamuhu ku haystaa. ya ilaa uu qofkaasi ku cafiyo mooye dembiga isaga aad samaysay, aad qofkaa ka gashay, ama qofka dulmi, ama qofka xamo, ama sumcadiisa ku ciyaar, ama wuxuusan ahayn ka sheeg, ama maalin iyo habeen ka daba shaqee, qofkaas dembiga aad ka gashay isaga oo kaa saamaxa mooye ilaa yowma qiyaamaha qofkaasi uu ku haystaa xasanaadkaagana waxbuu ku leeyahay. bal haddaan qaldanahay halay soo saxo. marka muslimadu waxaa weeyaan sidii la inoo sheegay in waxa qurux badan aad u qaadatid, laakiin 50 qaado, 50 maaragtay ka tag. waa mid subxaana leh, xaqiiqatan waa mid aad iyo aad u subxaana la weeyaan. waaya taasi waa mid oo ma aragtay waxyaabaha iga yaabiyey oon aadka ula yaabo ayay ka mid. ta labaad, qof baad ka arkaysaa haddeer qaldan, gabar waxaad arkaysaa qaawan, nin waxaad arkaysaa balwad lahoo meelaha dhacdhacaya, qof waxaad arkaysaa xooga ay wax ka qaldan yihiin. diinteennu qaab dadka wax loogu sheego oo loogu waaniyo ayay inoo sheegtay. brotocool wax la yidhaahdo ayay diinteennu inoo sheegtay. qofkan adiga ku waaninaya, qofkan adiga wax kuu sheegayaana marka u horeysa waa inuu adiga wax ku dheer yahay oo adiga kaa fiican yahay. ya marka waxaa cajaa'iba, qofkii waa la caayayaa, adigii baaba dembi sii galayaba. qofka markaad wuxuu sheegaysid si tartiiba oo saaniya oo qabow ayaa wax loogu sheegaa. qofka qalbigiisa ayaa la dhowraa. hadal xun inuu kaa tago ayaa maaragtay la diidaa. qofku waa inaad qalbigiisa xadid oo soo jiidatid si nasteexa oo qabow ayaa diinteena laynoogu sheegay in qofka aad u waanisid walaalka ah oo wax ka qaldan yihiin. ya taas miyaa laynaga helaa waqtigan xaadirka ah? ha ka yaabin. laakiin xisaab waa tii dambaysa. carabkana maanta hadduu qoyan yahay berrita ma qoyanaanayo. qabriga yaraa ee 2 mitir ah ayaa qof walba sugaya. qof haddaad aragtid qoor qaawan, ama qof madax qaawan, ama qof si kala ah, waxaa laga yaabaa adigaagaas inuu diinta uu kaaga badan yahay, wax aqoon badan uu u leeyahay ayaa laga yaabaa. ya marka qofka ha iska jaaj karayn, ilaah baa wax jaaj kareeya. miisaankii wuu dambeeyaa lagu kala eegayay
adigu howlahaas ka bax kaba soo qaad qof walaalka ah ayaadba aragtay oo ma aragtay wax xun sameeyey qiil waqaala looma joogayaa iyo heblaayo sidan bay tiri heblaayo sidan bay samaysay hebel iyo hebel sidan bay ku kala tageen dadka la iska bahalkiyeeyo taas kama hadlayno waxaan ka hadlayaa waxaad u jeedid oo qalad ah ayuu qof islaamihi kale ilaahay muxuu ku yiri qofkii adigoo u jeeda inaad ceebtiisa aad asturtid ilaahay wuxuu ku yiri ceebta bini'aadmiga astur adigana sidantaada u asturo ya hadalku ma idin dhaadhaca marka horta ilaahay ma aragtay ilaaha ma hadle oo dad islaamay naga dhigay maasha allah wax lagu farxo waa nimco gaara laakiin waxaa isweydiin mudan Soomaali haddaynu nahay in hadalka badan iyo horrogta badan iyo qiil waqaala iyo afaara interno aan lagu dirsan inaynu ku mashquulin adigu ceebahaaga hoosaad u egtid adiga maxaa kaa qaldan maxaa kuu saxan maxay tahay inaad ma aragtay bedeshid ya aadan qof walaalka ah marnaba aadan sheeda aadan ka eegin oo aadan ku mashquulin way runtii wax kaaga ka dhiishay ma jiraan dambi waxaan ahayn kama qaadaysid ya waanadu waa wax furan in la iswaaniyo wax wanaagsan in wax la isku sheego wax wanaagsan qofku walaalka aad wax ku dhaantid laakiin qaabkee weeye qaabkaad wax u sheegaysid waa qaabkee qaab seef laboodnimo ahba qaab waxa weeye qofkii aad iska dhigaysid qofka inaad ma aragtay aad ka wanaagsan tahay sidii aad adigu xisaabtaada og tahay buugaaga ku hor yaalood og tahay in wax walba ay kuu saxan yihiin inaad iska dhigtid saas ma aha ya malaa'igahana shaqadooda ha loo daayo ummadda ilaahna wuxuu ku yiri gaal iyo muslimba ii nabadgelay ummadayda afkaaga ha ka nabad helaan adinkaagana ha ka nabad helaan هذه وسلام marka cunsurnimo haday jirto inaga la inoogu yimaadaa ummadaha kale wax qof judge kareynaya wax qof ku mashquulaya wax hoos u eegaya haba ka yaabin ma jirto waa inaga marka walaalayaal intaas waxay iga tahay waana yaro kooban oo general ah إن شاء الله تعالى إنتينو فيديو لمده هنكو كل مدونه وحان إذن كجتها سلامة إسلام كواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.